saddex gabdhood qofka ilaahay siiyo fasabara calaa la'waa'ihinna oo u sabra korintooda mushaqada iyo shiddada iyo hawsha culayskan arrintaasi leedahay u sabra dhibta kaga imanaysa u sabra xilliga ay faraxsan yihiin marka ay bukaan markay wax u baahan yihiin markay faraxsan yihiin markay leedan yihiin intaba u sabra oo hawsha isku wada qofka ilaahay saa u sii adkhalahu allaahu aljanna ilaahay jannuu gelinayaa bifadli raxmatihi iyaahunna naxariista uu iyaga u naxariisanayo fadligeeda iyo buu ilaahay ku gelinayaa subxaanahu wa tacaala iyo raxmaddiisa dheeraadkeeda nin meeshii fadhiyoo saxaabada ah baa wuxuu yidhi aw hintaani yaa rasuula allaah oo laba gabdhood isagu lahaa ka warran laba ninkii leh rasuulka ilaahay anigu saddex maba dhaline qaala aw hintaani ama ninkii lababa koriyoo dhaqaaleeya wa qaala rajulun nin kalaa kacay saxaabadii ka mid ah aw waaxidatun yaa rasuula allaah ninkii hal gabar leh ka warran isagu rasuulka ilaahayow qaala aw waaxida kii hal gabar leh xitaa buu nebigu yidhi salawaatullahi wasalaam marka waxa weeye hal haddaad dhashay iyo laba iyo saddex iyo afar ilaahay waa kuu barakeenaya subxaanahu wa tacaala